maanta ciyaartii wanaad waa la gaaray kolley Fandaj ayaa ciyaartan u soo laabanaya oo ciyaarihii la soo dhaafay tii Chelsea ku jirtay xanuun ku seegay Alcantara ku dhiso ciyaartan inuu safan kara baa la filayaa bariyahan waa dhaawacna laakiin Luis Diaz ciyaartan inuu ciyaari karin baa la arkayo asagu tan leaders buu imaan karaa 17 bisha Abriil laakiin ciyaartan waa ku degdegtay xogaa hoosta ka soo gashay balse dhaawacii kale Alcantara ayaa ciyaaray Diaz ka fadhiisay nasiiba leeyahay Arsenal kaas balaayo wayaan Bukayo Saka ku dhiso wuxuu ka soo qabtay xogaa bariyahan juuc iska galay canugii waa iska jirnaa maalin weyn waa sababtoo kursi keed ku galay maalin yani loo nasiin yani u fariistay bal maanta ku soo bilaabanaya ciyaarta wabani kugu miisan Arsenal aad iska jireysaan Bukayo waa weynaaday Bukayo iska jira Bruno walbo Arsenal wuxuu ka imaanaya halistiisa Bukayo ka imaanaya Saliba inkati still inay maqnaan karaan balay wala Saliba wali uu maqnaanayo difaac holding ba meesha jooga tawata laakiin yaa saadash ugu badan la siinaya falanqeeyaasha iyo dadka ciyaaraha predict gareeya ciyaaraha ka hor ciyaartan waxay saadaalinayaan in ay badin karto kooxda Arsenal waliba 3 gool iyo gool BBC da saadaasha ay wariyaashu sameeyaan ciyaaraha ka hor la sameeyo maanta waxa loo qoray Arsenal 3 ku adkaan doonto yani wax weeyaan waa ognahay Liverpool inay awood leedahay oo Anfield yani in Liverpool yani Anfield ay loogu gali karin waa loo geeyay awood ku leedahay laakiin watan saacad ugu dambeeyay indhahay koox Real u socota Anfield iska dhaaf Anfield ku badin karta marka saadaashiga la siinaya saadaashan way isbedeli kartaa oo Liverpool way badin kartaa laakiin ciyaarta ka hor sidee wax noqon karaan saadaash cid baa la siiyay favorite bay ciyaartu leedahay ugu cadad waxa la Arsenal ugu cadad maxay waxa loo fiirinayaa niman Real u socda Leicester wala maanta kale isku furdaamin karaan niman Real u socda waa is furdaamin og yahay maanta kale taana wata hadaba Arsenal bariyaha xataa fardisku afkuru ka gool fardiska waa dhalayaan Man City kabtay gashay wal gadoogshinaa la macna Man City afar dhaliso Arsenal waxa la dhalaysaa u badan maxay waxaad kala jeedaa in Liverpool ku fardhi karaan ogow Arsenal waxay dhalin kartaa ugu yaraan 3 gool ciyaarba ka dhalin kartaa 6 ciyaar soo xigta horyaalka markii ugu horeysay tan iyo 9 wiilashan Arsenal wiil wax kala waa wiilashan la isku aadaadiyay la isku keenay waa wiil halis badan mid kale Liverpool homekeeda ku awood badan tahay Arsenal way ku garaac tahay maxay Liverpool 6 jeer ugu dambeeyay homekeeda kula ciyaareen Anfield kula ciyaareen Arsenal way garaacayeen waa sababta lagu leeyahay Arsenal way ku inkaaran tahay gagada Liverpool oo kuma aanu soo badin tan iyo 2012 sababta lagu leeyahay hatta biriga Mikel Arteta ayaa ciyaartoy ahaa aydi ka dhaxgalo Arsenal horta halkaas kuma soo badin laakiin way sameyn karaan maanta oo kale maadaama Real u socdaan midda kale xogaa rally noqda yani waxaan kala jeeday saacadii ugu dambeeyay markaan lahaa Arsenal garoomo badan ay ka inkaaran tahay way ku soo inkaar baxday ayaan kala jeeday yani anigoo Arsenal ku dhiirigelinay natiijadan leeyahay iyo niman habaaran weeyaan 19 Real man ku guuleysan marka nimankan wax badan baan soo dhiijiriyay taageerayaasha sabarka badan waa guuldarooyinkii caadi bay la noqdeen wax badan baan soo dhiijiriyo marka xogaa yar Bruno ka garanayo ayaan waxaan يعني qabay in kooxda Real ku socoto maanta oo kale ay badin karto waana laga badin karaa laakiin kooxda Real u socoto maanta oo kale si waliba isu furdaamin karaan markaas waxaan niri garoomo kala duwan bay Arsenal ku soo badisay siisaga ha noqoto ama siisaga kala noqoto yani 12 kuma soo badin Liverpool iska leeyahay lugtan kuma soo badin laakiin maanta way sameyn karaan sababtan kullee ma taqaana wax kala ma aha maxay yeelay Arteta sanadii ugu Arsenal maamulay wuxuu bilaabay inuu soo afjar rikoodka xun iyo garoomadiisa ku badin todobaadkan wuxuu yiri sanadii ugu dambeeyay waxaan ka shaqeynaynay meelaha aan ku soo badin karin waynan ku soo badinaa tusaale ahaan bal fiiri xilli ciyaareedkan waxay guush ugu horeysay gurigooda kaga soo gaareen Tottenham bay siska gurigooda ku soo garaaceen Tottenham garoonkooda ay ku inkaarnaayeen way soo afjareen sidoo kale siska waxay ku badeen Stamford Bridge oo iyana ay ku inkaarnaayeen Old Trafford walow siska kan aanu ahayn laakiin waxay kamid ahayd sanadii ugu dambeeyay meelaha Arteta uu ku soo badiyay oo walina uu ku soo afjaray inkaarta haysatay kooxda Arsenal tusaale amal fiiri wuxuu sanadii ugu dambeeyay inuu ku soo afjaray inkaar ka haystay gagada Old Trafford Manchester ay leedahay 14 sano ku soo badin buu ku soo badiyay in garoonka marka Man United xagagan ma laakiin labadan kale xagagan buu inkaarad group ku soo afjaray Manchesterna season dhaweed group ku soo afjaray 14 sano inuu ka badin ayuu ka soo badiyay yani marka Arteta wuxuu soo jeestay inuu jijibiyo wax la yiraahdo inkaar garoon Arsenal Blue ku soo badin karto Arteta waa ka tabashaystay sanad walba garoon hor u socda marka ma ahan in Manchester leeyahay xagagan waa looga badiyay teamka gurigooda Manchester lagu soo garaacay guracmaana waxaan kala jeedaa nimanku Arteta maamulay waxay bilaabeen garoomada ay ku badin kareen sanadii ugu dambeeyay inay ku soo badiyaan oo xataa 14 sano kaar Old Trafford ka haystay iska soo qaadeen marka laakiin Liverpool waxa leeyahay hadii sidii kulankii Man United oo kale ay u ciyaaraan oo ay todobada ka dhalinayeen kadib Liverpool lama arkinba
markaas Arsenal baxri ku jirtaa baa runtii waxa halka heerna baa mid aqaba wuxuu leeyahay hadii Liverpool ay ciyaartay kulkii United ay ku farnayeen goolashu wallahi yaba laakiin hadii بري لسورة في سيد المساس نماذج قلب عياران أرسنال بعيارات بدني سبالة مركا أرسنال وكصوت أن كله هي كما ينسو بدي جرام قفل الوقت دير لكن ويسمين كان صوت أن كله حياتك سنة قدام بي جرامك كلا دوان ويان كسو بدي بيكسو بدنيا ولبل لكن وجو أرسنال ومركز سجالات أو أي ليفربول كقاري مارس برمين ليجا يجو هجان كوهيا ميدا كلا ليفربول سدح دي عيارات للصورة في مانو أتكان حتى ليفربول لما كان يدخل بس جول ما دالين نيمان كوا قلب ميدا قال أقول ليفربول حتى أنفل بريهان لوجو ما قالي كارو جروجو جول لوجو ما دالين وقدم بعيار تجي وعياري كحدة كوبدا عكتا ليستر بقدم بينو جول كقدر داليو مركا يانتا حتى جول جروجو كرويين وصوت أرسنال لوجو تجي جرانكا ياردي كلاب وحنا قكرة معلي في جوري أرسنال تضبع عيار وش حتى جورجيس كوجرا ونقكرة يا نين كان ويدين هايسام محمد صلاح اسم ريكورد في كل أرسنال محايلي تضبع جول بكل الأرسنال شن عيار وكوري ماذي وأنفل كوري ماذي يا marka shan uu ka dhali labana uu ku xaaway ninkaasna waa idin keliya hatta Jota sidii ku ciyaar gool ma dhalin waa sanad ku dhow laakiin Arsenal uu ka helaa maxay yeelay lixdii ciyaar ugu dambeeyay 7 gool buu ka dhalin ninka ka aad uu isagu u jecel teamka Alisson oo kale waa ninka sanadkan ugu badbaadinta badan يعني sanadkan badbaadinta uu sameeyay waa in ka badan sanadii hore Liverpool joogay badbaadinta badan uu sameeyay yani Liverpool sanadkan ninka jiidiya waa ninka baa leeyahay oo bandhigiisa laga hayay dadkii kale waa ka taalaa midda kale Arsenal baa ku soo hartay iminku 7 ciyaar la soo dhaafay xiriir bay adkaanayeen horyaalka waa kooxda xagagan 7 ciyaar isku xiriir ah isku toosay waa macna koox xagaan ma jirto 7 ciyaar xiriir Premier League adkaatay ma jirto haday maanta badeen waxay noqon kartaa 8 ciyaar isku xigtay adkaadan Premier League markii ugu horeysay 2015 حتى وجدكده wuxuu yahay afar ciyaar isku xigtay Premier League inay ku soo badiyaan kulamada banaanka awayga Arsenal kurota wasabta aan ku leeyahay garoon shishe ama garoon aan kooda aan Arsenal way ku badi karaan sababtoo ku leeyahay waxay tahay afar jeer bay xiriir u socdaan maalinkan ku soo baday yani hatta mid kale ogow xagaan waa kooxda dhibcaha ugu badan ku soo heshay weeyaan ama guulaha ugu badan ku soo heshay weeyaan garoomada banaanka Premier League xagaan ee aan gurigooda ahayn wasabta aan ku leeyahay hatta Arsenal xil ciyaareedkan 12 jeer Premier League shabaqooda ilaashatay sagaal kamid waxay imaanayeen kulamada banaanka يعني أرسنال كمدة أول جسيدة ما أنت وكله أيوه كوفي عين حتى أقول هاي أرسنال رمزالي وحنا نقول ما أنت عيارتوز ده على التاريخ ده طبعا شير طبعا كل شيء خسكول عشتهم ك يعني جرانك أنكيس أهين هل عيارات جودي بريمليجا سوا حروس مي باتريتشاك إي أدرسون يعني طبعا عيارات بأسعودة إنه أول جول كسر علاش سيسم جودي رجعنا كابتن هروج يشتريه ماركا أرسنال اللي في عيارة دواتا استيل أرسنال بالله سادلنيا يكون حلوة صورة تقل وانا لقراعي كرا إن كانت أرسنال كسرعان كرتا أو يسكتوا الغادي كران لكن سيد الريكورات يساعدوا قدام بيقعد يا كحريال كسرعتها وبدين جرت معهم انت من نوع كله أرسنال وقتها ستيل يسوي بدي سي هدي ما أنت شوفته والله يابا ريال إن شاء الله ما ليه كرتو كحريال وسعود أنا هل دبي على مقارنة أرسنال لو ما أنت كلها بديان هذا إنها تكتان ولا ميل وسعودان حل دبي مرة كردع جرتيو نما يواقع بس إنكارات كجرام ماذا كسران أرسنال أرتت والصعب جري السنة دي قدام بي تاسنا الله صعد عيدها ليفربول مركا أنت هو أنت